barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada ugu baaxadda weyn degmooyinka gobolka Banaadir ee Hodan. Degmada Hodan waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 1973 waxay qayb ahaan ku taallaa afarta qaybood ee gobolka Banaadir. qaybtiisa waliyo cadde waxay xuduud la leedahay 5 degmo oo kala ah waa Bari, Hodan, Daynile, Wadajir iyo Dharkeenley. degmada Hodan waxay ka kooban tahay 4 waaxood oo kala ah Axmed Gurey, Kacaan, Oktoobar iyo Taleex. goobaha caanka ah ee degmada Hodan ee aadka loo garan og yahay waxaa ka mid ah warshadii kabka, Mawlac Macalin Nuur, warshadii caanaha, daarta Saybiyaano, warshadii Coca-Cola, isbitaalka Ordogan Ex Digfer, kuliyadii culuumta siyaasadda, xera agoonta, xerada curyaaminta, hoyga guryaha dawladda, shir kale officiale, African Village, xero Ruush, Bangaariyo, isbitaalka xooga, ex carwadii caalamiga, fagaarihii kowda luuliyo ama tarabuunka, garoonka Horseed, guryihii hore ee shaqaalaha maxkamadii degmada Hodan, maxkamadii ciidamada qalabka sida, xaruntii boostada iyo isboortiska, bangiga Banaadir, dugsigii sare ee Banaadir, dugsiga hoose dhexe ee degmada Hodan, madaxtooyadii Cabdiqaasim, xarunta dambi baarista ee CID, Shaneema Nasri, isgoyska kiiloomitir 4 oo ay wadaagaan degmooyinka Wadajir iyo Waabari. xaafadaha ugu caansan ee degmada waxaa ka mid ah Taleex, Tarabuunka, African Village, Saybiyaano, Sonokey, Bangaariyo, xaafadda Banaadir, Shirkole, MBC, Sigaale, KBB iyo Albarako. degmada Hodan waxay kulmisaa 4 jid ee ugu waaweyn magaalada Muqdisho ee kala ah Maka al-Mukarrama, Wadnaha, Sodonka iyo Warshadaha. waxaa degmada dhexmaro jidadka Sodonka iyo Wadnaha, waxaana dhinacyada ka mara Maka al-Mukarrama iyo Warshadaha. degmadu waxa ay leedahay 2 MCH oo ku yaalo waaxaha Oktoobar iyo Taleex. way shaqeeyaan sida aan xogta ku helnay, mana ahan kuwa ku filan daboolida baahiyaha caafimaad ee bulshada ku dhaqan degmada. canshuurta ugu badan ee degmada waxay ka soo xarootaa guryaha, mana lahan suuqyo saameyn leh oo ay ka soo xaroodaan canshuur, waxayna kaalmaha hore kaga jirtaa degmooyinka ugu soo canshuur xareyska badan. waxaa la qiyaasaa in degmada ay ku yaalaan wax ka badan 40 iskuul iyo ku dhawaad 38 jaamacadood, waana degmada ugu badan oo ay ku yaalaan xarumo waxbarasho. waxaa loo sababeeyaa guryaheeda oo ah kuwa dhul waaweyn ku fadhiya. gudoomiyaha degmada waa Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise oo loo garan og yahay Dhagajoon. waxa uu hore uga soo shaqeeyay wasaaradda amniga iyo Villa Soomaaliya. wuxuu mar soo noqday agaasimaha amniga iyo barakoolka guddiga doorashooyinka qaran, waxaana keensaday saaxiibka madaxweynaha Cali Yara Cali oo ay isku heeb yihiin. ma jirto wax maamul dawlad hoose oo uu ka soo shaqeeyay, wuxuuna degan yahay degmada Hodan oo halka uu maamulo. wiilkan sida kadiska ku helay xilka gudoomiyaha degmada Hodan ayaa degmada kala wareegay Maxamed Axmed Cantoobo oo loo dalacsiiyay agaasimaha arrimaha bulshada gobolka Banaadir. wuxuu ka mid yahay tiro gudoomiyayaal degmo oo shaqo ku helay qaab saaxiibtinimo iyo qaab reereed. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhanka siyaasadda degmada waa Looyaan Maxamed Cali. waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada baraha bulshada u qaabilsanaa xafiiska madaxweynaha, waxaana booskan geystay Maxamed Tuulax oo ay isku heeb yihiin. wuxuu degan yahay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. inkastoo degmo ku taalo gobolka Banaadir aysan lahayn boos siyaasad shaqo laga maamulo, ayaa xilhayntan wiilka baraha bulshada sida indha la'aanta ku difaaci jiray madaxweyne Farmaajo ee Villa Soomaaliya shaqo la'aanta ku qabatay shaqo loogu abuuray gudoomiyaha siyaasadda ee degmada Hodan. Looyaan waxa uu ka mid ahaa dadka sida indha la'aanta ku taageeri jiray baraha bulshada xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudoomiye ku-xigeenka amniga waa Yaasiin. ma jirto shaqo dawladeed oo hore u soo qabtay. waxaa keensaday Generaal Tuuryare oo ahaa taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, wuxuuna degan yahay degmada Cabdicasiis, taas oo muujinaysa in uu ka cararay degmadii amnigeeda u xil saarnaa. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waa Cabdikaafi. ma jirto wax shaqo dawladeed oo uu soo qabtay xilkan ka hor, wuxuuna degan yahay degmada Xamar Jajab. jidka dheer ee ka baxa isgoyska shaqaalaha ee taga wasaaradda gaashaandhigga ayaa ah mid burbursan, waxaana dayacan warta Sigaale oo dadka aaggeeda degan ay wajahaan caafimaad darro, waxayna iska noqotay musalsal aan dhammaad lahayn oo lagu cuno mashaariic badan. leerarka cadceedda ku shaqeeya ee degmada ayaa ah kuwa dansan dhammaantood, taas oo xilliga habeenkii ah degmada ka dhigtay mid mugdi ah. mana jirto wax dayactir ah oo lagu sameeyay muddooyinkii dambe.
dadka degmada ayaa dabagalka la wadaagay in dhibaato badan ay ku qabaan jidka hormara warshadii hore ee caanaha ee ku dhaca jidka soddonka. waa meel kooban oo ay ka tageen shirkadihii dhisayay jidadka tarabuunka iyo kan soddonka, waxaana inta badan ku rogmada gawaarida xamuulka ah halka mootooyinka iyo kuwa raaxadana dhibaato badan ay ku qabaan. taliyaha saldhigga booliiska degmada Hodan waa Bashiir Cabdi Siyaad oo loo goran og yahay Bashiir Durqaan. wuxuu masraxa ciidanka ku soo biiray dowladii Cabdiqaasim, wuxuu soo noqday military oo uu ku soo gaaray darajada laba xidigle nabad sugid iyo booliis oo uu hadda yahay. wuxuu soo noqday taliyaha nabad sugidda degmada Hodan ka hor inta uusan noqon taliyaha booliiska ee degmada Hodan. wuxuu la soo shaqeeyay dowladihii Cabdiqaasim, Cabdullaahi Yuusuf, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajo oo hadda ah. wuxuuna degan yahay degmada Hodan oo amnigeeda uu mas'uulka ka yahay. amniga degmada Hodan ayaa ah mid aan wanaagsaneyn, waxaana ka dhaco qaraxyo jidadka la dhigo iyo kuwa lagu aaso hareeraha laamiyada, waxaana bilihii la soo dhaafay ka dhacay qaraxyadii ugu badnaa. Abriil 2020 waxaa qarax lagula eegtay inta u dhaxaysa tarabuunka iyo Degfer ku geeriyooday gaashaanle sare Cismaan Muuse Axmed oo loo yaqaan Maqaaro, isla markaana ahaa madaxiisaadka ciidamada 12 Abriil. 8 Juun 2020 waxaa aaga isbitaalka Degfer lagu dilay wiil yar oo ka shaqeynayay dhaqidda mootobajaajta, waxaana goobta ka baxsaday askarigii dilka geystay, wuxuuna u dilay $1 oo la sheegay in uu ahaa baad uu ka qaadan jiray, taas oo dayn ku ahayd. 18 Juun isla sanadkan waxaa qarax lagula eegtay aaga madaxtooyadii Cabdiqaasim ka badbaaday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidamada xoogga dalka Sareeyo Guute Maxamed Cali Bariise. 13 Juulaay isla sanadkan waxaa qarax ismidaamin ah oo lagula eegtay aaga tarabuunka ka badbaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka, waxayna khasaare ka soo gaartay dad shacab ah oo goobta ka agdhowaa. 18 Juulaay isla sanadkan waxaa qarax lagula eegtay isgoyska Taleex ka badbaaday wasiir ku-xigeenka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdinaasir Siciid Muuse. wasiirka ayaan saarneyn xilliga gaariga la qarxinayay. in qaraxyo ay ka dhacaan degmooyinka dhaca gobolka Banaadir ayaa ah mid ka weyn xoogga iyo caqliga saraakiisha ammaanka loo xil saaro, taas oo ay tahay in la helo istaraatiijiyad ka timaada dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda amniga. muxuu degmada Hodan ka aaminsan yahay General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo ka mid ah dadka degan degmada Hodan? طلع أنا ممر شخصيا عفدي إذا أنا جيت كريو لما جدا لهم مرة هل جدوا كم ذوق وأنا من سنة صورها طلع إن الدقيقين ضدك الشباب شغالين تاع شقاكولة وحنا عضينا هي سيدا مركزة ضدك والله مين كالله قرحيو عضينا هي دمتي دبوك صون وكاله. degmada Hodan waxaa ka dhaca dagaalo salka ku hayo isqabqabsi dhul. tarabuunka iyo xaafadda Sonikey ayaa ah meelaha ugu badan oo ay ka dhacaan, waxaana loo sababeeyaa ciidamo military ah oo degan xaafadahaas. sidoo kale degmada Hodan oo ay ku yaalaan xarumo lagu tababaro ciidamada, suuqa qaadka ku soo dego, isbitaalka xoogga, marina u ah wasaaradda gaashaandhigga ayaa kulmisay inta badan ciidamo kala gedisan, kuwaas oo isku dhaca mararka qaar. qaybo badan oo degmada ka mid ah ayaa la soo dhigay ciidamo boolis ah, kuwaas oo meesha ka saaray cabsidii la xiriirtay taleefan dhicidda oo dhib badan ay ku qabeen dadka deegaanka, iyada oo la xasuusto in taleefon laga qaadan rabay loo dilay Cali Barqadle 13 May ee isla sanadkan. waa Maxamuud Alxaaji oo idin leh ciid wanaagsan.